nin ganacsate ah wuxuu ka tagay hooyo iyo saddexdeeda carruur. Carruurtana waxaa ugu weyn 10 jir. hooyadii waxay heshay warqad caddaynayso ninkeeda oo dhintay inay lacag uu ku leeyahay nin kale ganacsata ay isla shaqayn jireen. warqadii la qaadatay inay dacwad la tiigsato ninkaas lacagta ku leeyihiin. ninkiiyaa laga wacay maxkamaddii markuu imaaday ninkii wuxuu ka caddeeyey inuu lacag lagu lahayn. ninkii qaadiga wuxuu u arkay arrintan inay arrin aad u cakiran inay tahay. warqadooyinka naagtan wadato warqadooyin aad u daciif badan ay siin karin xaq inay ku hesho lacagteeda. wuxuu ka codsaday ninka lacagta lagu lahay inuu kala hadlo arrintan si gaar ahaan. markaasuu u soo dhowaaday oo dhahay iska ilaaliya maalka yatiimka hana cunina. ninkii markuu arrintaas saas u maqlay oo qaadiga saas kala hadlay wuu isku noqday. wuxuu damcay inuu qaato waqti uu ku soo fikiro. uu ku codsaday markii la ogolaaday waqtigii uu codsaday waxaa lagu xiray shart uu yahay inuu imaado guriga garsooraha. sidiiyo maalintii ballanta uu ku imaaday guriga garsooraha wuxuuna soo qaaday lacag dhan 15,000 kun. wuxuu siiyey hooyadii iyo ilmaheeda meeshii joogaan lacagtii lagu lahay 10,000 dhameed. wuxuuna ugu daray 5,000. wuxuuna u raaciyey waxaan u maleeyaa ninkaada inuu ku qorin meel 5,000. sidaas darteeda hooyadii gacmaheeda kor u taagtay duco aad u naxariis badan ay ugu ducaysay ninkii. 3 maalmo kadib markii hooyadii guriga iyadoo joogta waxay heshay warqad ku qoran inay lacagtooda mar hore la siiyey ninkana deen lagu lahayn. sidii warqadii ula oratay ninkii qaadiga ee u sheegtay arrintii. qaadigii wuxuu u wacay ninkii lacagta lahaay oo deenta soo guday. wuxuuna u sheegay inay warqadan la helay. ninkii marka si farxad iyo wanaag ugu jawaabay ninkii qaadiga asagoo sheekada say u dhacday ugu sheekeynayo. wuxuu yidhi waxaan lahay gabar keliya. gabadhiina way iga jiratay. daktarkana markaan u geeyey waxaa liigu kalifay inaan daawadeeda ugu sameeyo lacagtan. markaas waxaan go'aansaday inaan lacagta gabadheeda aan ku daaweyn lahay inaan hooyadan iyo carruurteeda aan siiyo. sababtoo tahay waxaan arkay inay aad iyo aad ugu baahan yihiin. rabbi casa wajal aan weydiistay inuu sadaqadan aan baxsanayo inuu gabadheeda caafimaad igu siiyo. marka taas darteeda waxaan ugu sadaqaystay gabadheeda caafimaadkeeda. alxamdulilah maantana waxaan la kulmay gabadheeda dakhtarkeeda wuxuuna ii sheegay inay gabadheeda jiradii ay ka caafimaaday oo ilaahay caafimaad siiyey. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم.